خفق الفؤاد بأضلعي وشجاني، وترقصت طربا لكم أشجاني. اليوم قطف ثمار خير قد مضى. خفق الفؤاد بأضلعي وشجاني، وترقصت طربا لكم أشجاني. خفق الفؤاد بأضلعي وشجاني، وترقصت طربا لكم أشجاني. اليوم قطف ثمار خير قد مضى. اليوم حفلة حفظك القرآن. اليوم حفلة حفظك القرآن. هذه الوجوه النيرات بقربها تزهو عليها حلة التيجان. 15 بكن قد انتشأت السنون، وحان وقت حصادك. لله درك يا ابنة الشجعان. هذه الوجوه النيرات بقربها تزهو عليها حلة التيجان. 15 بكن قد انتشأت وتفخرت صدقا على الأقران. أنعم به جمعا كريما طيبا، أنعم بكل الطهر والإحسان. مضت السنون وحان خفق الفؤاد بأضلعي وشجاني، وترقصت طربا لكم أشجاني. اليوم قطف ثمار خير قد مضى وشجاني، وترقصت طربا لكم أشجاني. اليوم قطف ثمار خير قد مضى. إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من سواد. walaalayaal waa waxaa loogu farxo inaynu markaa ka soo qayb galno dhalinyar markaas waxa weeyaan baranaysa shareecada islaamka ku baranaysana markaa waxa weeyaan masaajidada. waa cilmi had iyo jeer iska yar oo waqtiga sabeen aakhirka ah ee nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam cilmigu inuu yaraanayo oo waqti iska yar in la helo dad noocaas oo shareecada islaamka baranaya. laga yaabaa waxa weeyaan iskuullo iyo madaaris iyo jaamacado in xaflad loo qabto laga yaabaa, laakiin way yar tahay cilmiga sharciga ah meel lagu baranayo oo weliba waxa weeyaan dadkii wanaagsanaa salafkii siday u baran jireen oo masaajida in lagu barto ah in waxa weeyaan xaflad loo qabtaa way yar tahay. laakiin waa shayga keliya ee waxa weeyaan markaa diinta ku cad ee waxa weeyaan markaa axaadiista rasuulku ay sheegtay, aataarta saxaabaduna markaa waxa weeyaan markaa ay tilmaantay. cilmiga waxa weeyaan barashadiisa marka cilmi la idhaa waxa weeyaan markaa kitaabka iyo sunnaha ayuu ku soo ururayaa. kaasina waxa weeyaan markaas waa kaa ay baranayaan maanta dhalinyartu. waxaad moodaa in loo soo jeestay oo dadku ay ka baxay markaa waxa weeye jahligii iyo waqtigii hore ee shareecada islaamka barshadeedii nagu yarayd. waxaa ka cabsaday uun ilaahay subxaanahu watacaala dadka aqoonta u leh. qofku haddaanu aqoon u lahayn waxa weeye ilaahay cabsidiisu waxa weeye ku jiri mayso. cilmigu waxyaabuu faa'iideeyena waxaa ka mid a ee ugu weyn waa ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa weyn. kadaalika waa al-ikhlaas, inuu qofku waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala awoodii cilmiga u barto. salafka culimada salafka qaar ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen waxa weeye tacallamna alcilma ligayri illah fahaba alcilmu ilaa an yakuuna lilah. cilmiga waxaanu u barannay ilaahay subxaanahu watacaala keyrkii
marka uu diiday ilaahay inuu ahaado mooyaane cimriga la gelinayo cilmiga barashada kitaabka iyo sunnada waxa weeyaan qofku liibaan adduunyo iyo to aakhira labadaba ku gaadhaya oo qofku waa saraynaya fi dunya marka uu cilmiga shariicada barto aakhirana waa saraynaya waxa ilaahay subxaanahu wa ta'aala kor yeelaya kuwa ilaahay rumeeyay kuwa cilmiga la siiyey marka in la rumaynta da waxa asal waa cilmiga waxa kale ilaahay subxaanahu wa ta'aala yafعل annahu la ilaha illa allah ogow ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaanu jirin xaq lagu caabudaa alla mooyaane marka imaam al-Bukhari kitaabkiisa wuxuu yiri baabu al-ilmi qabla al-qawl wal-amal inaad wax barato intaanad waxbana oran waxna aanad samayn cilmi bay kaaga baahan tahay inaad wax tiraahdo aqoon inaad u yeelato waxaad samaysaana cilmi bay kaaga baahan tahay ama cilmi bay nooga baahan marka Allah yibaarak fiikum cimriga aad geliseen iyo barashada waxa weyn aad baranaysaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa idinka abaal marin maanta galad baan ku jirnaa waxa weyn waaga hore cilmiga dadku dib badan bay u mari jireen runtii macallimiinta waxaan leeyahay waad ku mahadsantiin ilaahay agtiisa aad abaal kaga helaysaan miisaanka xasanaadkana ilaahay idinku daro waxaan leeyahay ardayda baranaysay xilliga adag ama bacda subaxa ama xilliyada adag runtii waxaan tacab la gelin oo aan waqti lagu bixin oo aan xilli adag loo guurin ama aan loo garab caraabin midha dhal ma noqdo wax tacab la geliyo oo waqti la siiyana kitaabka ilaahay iyo culumu shareeca ama culumu shareeca ayaa ugu qiimo badan waayo kitaabka ilaahay bay sharafteenu ku jirtaa rasuulku waa kii lahaa salawaatullaahi wasalaamu calayh xadiiskii caanka ahaa ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin ilaahay wuxuu ku kor yeelaa kitaabkan qur'aanka ah qolyo kitaabka qur'aanka kor yeelay oo ka akhlaaq dhigtay oo ka aadaab dhigtay oo akhriyey oo ku cibaadaystay oo kitaabku yahay waxa weeyaan wareegga noloshooda kuwa ilaahay kor buu ugu qaadaa kitaabka qur'aanka ah qaarna waxa weeyaan ilaahay hoos buu ugu dhigaayo kuwa aan danba kitaabka qur'aanka ka gelin hadday akhlaaqiyaad tahay iyo hadday aadaab tahay iyo hadday inay aqriyaan tahay iyo hadday inay ku cibaadaystaan tahayna ilaahay hoos buu dhigaa ardaydan quruxda badan lee hablayeennaba ka kooban maanta u fadhina xafladoodu waa ardayda wax ka barata masjid Abubakar Sadiiq في مدينة وجهالة حلقات كمسجد كبحة لبا يوقف سمان وحلقات قرآن الكريم كاكو تعلقة هي حلقات تعلقة برشاد كتب شريعة الإسلام لبدا حفلات أما لبدا قيبات برشاد قرآن الكريم ودمر كوبدا هي برشاد كتب شريعة رهانتي ومد مسجد كسيادة هذا قيمة بدن وجوهن ووقتيك لدول الله بحيو تاسو جديدة دمر كايتهاي inaynu cilmiga sharciga barashadiisa aynu dhiirigelino sarana u soo qaadno isla markaana ay ka qayb tahay waxyaabaha dhalinyarada iyo zamankan jooga sidoo sheekh Dawba tilmaamay fitankeeda iyo dhibaatadeedaba marka lagaga badbaado haddii ay gundadaadago qaybaha xalaqaadka quraanka kariimka barashadiisu oo marka u gaar ah dumarka waxa la bartaa muddo 5 cisha waa maalinta sabtida laga bilaabo ilaa arbacada 5 galabnimo حق برشة كتب تضمر كيجو وقت قال لك دكتايدنا وعشان عشوا وبعد صلاة الفجر يوم السبت إلى يوم الأربعاء حق كتب إنما هذا برشة ودو يجا وقت يدو دوي كلا دوانتي قار بعد مغرب كجلاوي تيران قار بعد صلاة الفجر جلاوي تيران أنت صورنا وتشدد اللوجو قول لي وحي تهون إن وقت جينا لقى فائدة علم جي شرع جهانا دني رضا لوجو بوريو ودني رضا تشوكتنا لوجو دي رجل برشة علم شرع جها dhalinyarada yani masaajidka la jaarka iyo dhammaan dadka masaajidka la jaarkaana ay ku soo dhiiradaan in xalaqaadka cilmiga ee masaajidka ka baxaya ay ka faa'iideystaan kala waqtiga oo iska kooban iyo martida oo iska badan kala shahaadooyinkan ay sugayaan ardayda loo qaybiyo kalmadeeda intaas aan ku soo koobaya jazaakumullahu khayran wa barakallahu fiikum mar saddexaad waxaan hambaliyo weyn u dirayaa ardayda wax ka barata ee rag iyo dumarba leh in ay dadaalka sii wadaan oo ay laba jibaaraan albaabkii ugu horeeyay baa u furmay
inay sii dhex galaan oo ka faa'iideystaan khayr allaha siiye ayaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa macallimiinta aan ku laabto ilaahay miisaanka axsanaadka ugu daro. waxaan markaasi kelmadayda anigu ku soo koobayaa ama markaasi aan yar tilmaamayaa ardayda in ay markaasi waqtigooda ka faa'iideystaan. waqtigu walaalayaal waxa weeyaan waa qiiman dahabkuu ka qaalisan yahay. waxaa la doonayaa gaaladu siday waqtiga u fahmeen ay uga faa'iideystaan, innagoo muslimiinay markaasi inaynu waqtigeena uga faa'iideysano si ka badan inaynu waqtigeena uga faa'iideysanaa la doonayaa. waqtigu walaalayaal waa noloshaadii, waa cimrigaadii. maalin hadday tagto cimrigaaga qayb ka mid ah ayaa markaasi go'day. wuxuu lahaa markaasi xasanulbasri waxa uu lahaa ibnu aadamow gebigaagu waxaad tahay ayaamu, maalin kastoo tagta qayb kaa mid a ku go'asa markaasi. marka waxaa la doonayaa waqtigeenna inaynu ka faa'iideysano. waxaynu kaga faa'iideysanna ugu horreeyaana markaasi cilmiga uu noqdo. cilmigana markaasi awlawiyaad baa jiraya si loo kala horreysiiyo. aynu luuqada marka hore aynu iska barano. qofku marka uu doonayo inuu cilmiga markaasi uu ka midho keeno ama meel fog uu ka gaadho, marka hore waa inuu luuqada meel saaro. haddaanad laakiin luuqadaadu dhisnayn ama cilmiga luuqada aanad ku fiicnayn, cilmiga kale 30 sano haddaad dhigato meel fog ka gaadhi maysid. si wada jira oo midnimo leh oo markaa islaamnimada oo walaaltinimada waxaan wada qabsano. haddaynu markaa juhdigeenna iyo fikirkeena aan midayno iyo aqoonteennaba maanta magaalada Wajaale waxbarashadeedu san may ahaateen. waxaa jirta aynu wada ognahay dhalinyar fara badan oo qur-aanka dhammaysta oo xifdiday awoodna u waayey inay macaayidda markaasi waxa weeyaan lacagta ay galaan oo ay markaa macaayidda lacagta wax ka bartaan meelaha deetana waxa weeyaan ku saaqiday. intani waa inta yar ee ilaah subxaana wa tacaala waafajiyey amba waalid kula dadaalay amba min tawfiiq illaahi subxaana wa tacaala ku soo haleeshay inay masaajidka timaado. in ka fara badan baa jirta oo sanad kasta madrasad kasta oo madrasadaha Wajaale ku yaala amba 40 amba 50 baa ka qalin jabiyo oo quraanka dhameeya. ardaydaas halkay martay mee aan isweydiina markaa. waxaa loo baahan yahay walaalayaal in loo fikiro ardaydaasi say u heli lahayn macad bilaasha oo markaa waxa weeyaan waxay ku bartaan oo waxa weeyaan markaas sida qayrkooda ay ku baranayaan iyagoo waxbarashada diinta markaa waxa weeyaan ay ka sii wadaan. kolley intaasaan oran lahaa waana mahadsanyihin mar hore iyo mar dambaba culimada masaajidka soo dadaashay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.